Assalaamu calaykum daawadayaal. Mawduuceena maanta waxaanu ku falanqeyn doonaa suuqa online-ka ah ee Forex-ka la yiraahdo, kaasoo muddooyinkii u dambeeyay haystay Soomaaliya. Haddaba Forex waxa uu yahay iyo halka uu ka soo bilowday iyo xilligan saameynta uu ku yeelan karo Soomaalida ayaanu eegi doonaa haddii Allah uu raali ka noqdo. Haddaba aanu ku bilowno waxa ugu horeeya ee la yiraahdo Forex. Waa lacagta oo laftigeeda ganacsi laga sameeyo, lacag lagu bedelanayo lacag kale, saameynna ku leh ganacsiga kale. Waa lacagtii sarifka ahayd ee aad taqaanay oo online laga dhigay ama computerized laga dhigay. Haddaba Forex sidee ku bilaabatay? Waxaa la sheegaa in ay bilaabatay taariikh ahaan xilligii Babylonian-kii hore ee dalka Ciraaq uu ka talin jiray dalkaas qaybo ka mid ah. Waa qarniyo hore. Masarna waxaa laga isticmaali jiray ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam, taariikhdu markay ahayd 259 waqtigii faraacinada. Suuqii ugu horreeyay ee Forex waxaa laga furay magaalada Amsterdam ee caasimadda u ah dalka Holland ama Dutch muddo hadda laga joogo 500 oo sano. Waxaana xilligaa la oran jiray suuqa ganacsiga xorta ah ee lacagaha oo afka qalaad lagu yiraahdo free trade of currency. Halka Mareykankana way hogaaminaysay shirkaddii loo yaqaanay Brown and Sons, shirkadaas oo shaqayn jirtay sanadihii 1950-meeyadii. qarnigii tagay ayaa mar kale dib loo cusboonaysiiyey sanadku markuu ahaa 1931 markuu yimid isticmaalkii gold standard. July 1944 ayaa qiimo joogto ah lagu saleeyo dahabka iyo doolarka, taa oo ah 35 halkii marba oo dahab ah. Waxaa markii dambe ogolaaday qiimeynta hay-adaha IMF, World Bank iyo hay-adda GATT oo dhinaca ganacsiga iyo suuqyada iyadu mas'uuliyad gaar ah ka saaran tahay. Waxaa xigay wadamo kale oo ayana ogolaaday xiriirka joogtada ahaa ee dahabka iyo doolarka la isugu bedelo. Khubaro ayaa sheegay in wadamadooda laga joojiyay ama caalamka oo dhan laga mamnuuco Forex-ka oo uu saameyn xun ku leeyahay wadamada, gaar ahaan wadamada soo koraya, iyaga oo leh waa qamaar ama gambling. Ha yeeshee wax lagama aqbalin, iyada oo cudurdaar looga dhigayo in sarifka la isticmaali karo wax dhoofinta, soo dejinta iyo maalgashiga. Haddaba wadamada qaar ayaa shuruudo ka soo saaray. Dadka ka ganacsada ayaa loo ogolaanayaa inay qaataan ruqsad ama shati. Wadamo badan waxa ay leeyihiin hay-ado kor kala socda ama toos u maamula suuqa Forex-ka la yiraahdo. Tusaale, wadanka Australia hay-adda la yiraahdo ASIC ayaa maamusha ama la falgasha Forex-ka. Hindiyana inkastoo ay la sheego in ay xayiraad aan sidaas u shaacsaneyn oo dhinaca sharciyada ay dul saartay shirkadaha Forex-ka, haddana waxaa maamula oo Forex-ka oo hoostaga hay-adda la yiraahdo SEBI, Securities and Exchange Board of India. Halka UK-na ay maamusho hay-adda la yiraahdo Financial Services Control. Switzerland-na waxaa looga dambeeyaa Supervision of Financial Market. Mareykankana dhowr hay-adood oo ay ka mid yihiin SEBA, NFA iyo hay-ado kale ayaa kontaroola ama maamulo Forex-ka, kulana socda suuqyada iyo sida ay dadku ula macaamilaan. Mareykanka waxaa la yiraa sharci ma ahan Forex-ka, taas waa been, laakiin si taxadar leh ay u maareeyaan. Waxaana xaqiiqo ah in New York Session uu yahay mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee Forex-ka marka laga tago Sydney Session, London Session iyo Tokyo Session. Dadka ajnabiga ah looma ogola shatiga. Qofka shatiga la siinayo waa in lacag keyd ah laga hayo, taas oo afka qalaad lagu yiraahdo security deposit oo dhan 20 milyan, si haddii uu musallafo ama khasaaro lacagta magdhow loogu siiyo macaamiishiisii lacagta uu ka qaaday. Haddaba
forex sidee suuqyada online-ka ugu dhex shaqeysaa habka ay u shaqeyso tusaale haddaan kaa siino waxaa leedahay laba akoon adigu mid waa dollar halka midka kale uu yahay shilin Soomaali akoonka dollarka ayaa waxaa kugu jiro $100 waxaa hoos u dhacay qiimihii shilin Soomaaliga oo noqday 20 shilin halkii dollar boqolkii ayaa sarife una soo wareejinay akoon Soomaali ah waxa ay ku noqonay 200 oo shilin Soomaali ah muddo kadib ayaa shilinka qiimihiisa kor u kacaya waxa uu noqonayaa halka dollar 10 shilin dib ayaad ugu celinay sarifka dollar ah waxa ayna ku noqonay 200 oo dollar waxaad faa'iiday $100 laakiin haddii shilin Soomaaligu hoos isii dhaco oo uu noqdo halka dollar 40 shilin Soomaali ah 200 oo shilin Soomaali ah waxa ay noqonay $50 waxaadna qasaartay $50 marka lama saadaalin karo isbeddelka suuqa lacagaha ee forex-ka oo waxa la yiraahdaa waa qamaar ama gambling haddaba ma isweydiisay su'aalahan inta aadan gelin suuqa forex-ka waa inaad isweydiisaa cidda aad la macaamile bangiga ma tahay bangi ma ku xiran tahay ma leeyihiin bank account dowladdaadu ma sameysay nidaam xadidayo qatarta shati ma leedahay bangigu uu ku leeyahay akoonka ma hubtaa in uu keed uu ka hayo si lacagtaadu uu u badbaado hadduu qasaaro kan aad la macaamile lacagta dalkaagu ma tahay mid wax laga bedelan karo ma ka fikirtay lacagtaada haddii aad bangi dhigto ama kan kaa qaaday uu dhigo in dulsaar intaa leeg aan lagu siinayn haddii lagu ganacsadana aan laga helaynin faa'iido intaa leeg sarifka isbeddelkiisa ayaa la gaadayaa diyaar muu tahay 3 meelood 2 meel qasaaro ah waxaa la yiraahdaa saddexdii qofba laba ayaa ku qasaarto diintaadu maxay ka qabtaa culimo badan oo islaam ah ayaa isku raacay in nidaamka la yiraahdo forex-ka aan la ogoleen kuwa kale ayaa ogol waxa kaliya ee la ogol yahay waa sarifka nooca maalinlaha ku kooban iyo kaydkaaga bangiga in aad ka qaadato adiga oo isticmaalayo ogow lacagta lafteedu badeeco ma ahan ee badeecada ayaa lagu kala bedeshaa dhinaca saameynta ee Soomaaliya dollarkii ayaa suuqyada ku yaraanayo dhulka deegaanka ayaa qiimihiisa hoos u dhacaya maalgashiga yaryar ayaa isna hoos u dhacayo keedka lacagaha ee habka shirkaduhu ay isticmaalaan sida EVC-ga iyo e-dahabka iyo wixii la mid ah ayaa yaraanayo wareegga lacagta ee suuqa ayaa isna hoos u dhacayo badeecada ayaa dadka iibsadaahi yaraanayaan kadibna maciishada ayaa hoos u dhacay ganacsiga qaar waa u xirmayaa sanadkii tagay ee 2019 suuqa online-ka ah forex-ka waxaa maalintii la isku dhaafsaday lacag cadadkeedu lagu sheegay 6.6 trilyan oo dollarka Mareykanka ah oo maaragtay isha hadda sharaxday oo forex wuxuu u shaqeeyaa lacagna akoon internet ka furato sida akoon internet akoonka ka furato international ah lacagaha sarif geliso suuqyada Ingiriiska ama Europe ama Australia saacadaha ay dhacayaan lala socdo waxa markaas waxa laga helay la iibsado ka bacdina la sii gado lacagtu xilligaysan shaqo ku jirin waxa fuula waxa la riba waysan shaqo ku jirin xilliga iyo wax lagu gado la sii gado waa la faa'iido la helaa ama khasaare la helaa laakiin marka ay meel taalaysan shaqo ku jirin waxaad ka soo galaysaa adigu jidka marka hore ku timid ayaa la yaqaanaa lacagtaaduna berigii hore waa hadda waa laga baxay in kaashka ku yaal bangigaanu kaash ku siin aniga lacagtayda maalintan wax iibsado FVC aan ku qaataa 24 hours ka yaray bangiga ku igu dhacaysa ma ku haysto forex account leeyahay mana ku haysto account uu leeyahay nin baran karo aniga mas'uulka markaan 24 hours ka yar less than 24 hours aniga waxa ii soo dhacaya mas'al inaan lacagtayda qaato haddana waxa ii soo dhacaya mas'al inaan waxaan iibsan karo
ama aan ka bixi karo waxa jirta marka mar aadan waxa aad ku jirtaa ay hoos u dhacayaan marka lacagtaan waa qasaaraysaa wallahi lacagtiidaa ka xabsada laga yeeliba waa gashay marka su-aashaadi waxaan u malaynayaa intaas uga dheragtay jidka ugu horeeyood ka bilaabaysaana halkaas waa ku salaamay